ciidanka booliiska Soomaaliyeed dagaalka qayb buu ka yahay wuxuuna yahay waxa loo yaqaan stabilization-ka ama xasilinta qolada ciidanka ugu horeeya maxaa la rabaa meelaha hadda la horeeyay inay tagaan muxuu ahaa ciidanka booliiska inay tagaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda biyaha dadka in loo geeyo nolol loo geeyo sidii ay kuwaas ku tagaan booliisku waa inuu ahaado hay'adda ugu horeysa oo iyadu tagto sidaa awgeed waxaan ciidan u dirnay Hirshabeelle gaar ahaan Shabeellaha Dhexe waxaa hadda ciidan jira magaalada Cadale Aadan Yabaal Rungood masaajidka Cali Gaduud iyo Cadowguul intaasba waxaa jira ciidan booliis ah oo loo tababaray oo meesha loo diray horeyna wuxuu ciidankani u joogay Afgooye Saliid iyo Caanood Awdheegle Bariire iyo Jannaale intaba waxaa jooga ciidan xasilina oo iyagu u gogol xaara sidii nolol loogu soo celin lahaa dhulkaas intii xilka aan hayay waxa ay suura gashay in saraakiil badan loo tababaro si kor loo qaado tayada ciidanka booliiska 69 sarkaal oo qaybta guud oo baarayaal hoggaanka CID-da 65 baarayaal oo Puntland loo tababaray Hirshabeelle waxa loo tababaray 65 Galmudug waxa loo tababaray 65 Jubbaland waxa loo tababaray 65 oo baarayaal sida awgeed qorshaha waxa noogu jira inay gacanta ku hayaan saldhig walba oo maanta jira oo xabad jooga in muxuu ahaa ku yaala in taliya uu ka noqdo ama dambi baarayaasha madaxu noqdo nin jaamacad ka soo baxay oo dambi baarista soo maray oo booliiska Soomaaliyeed taliska ciidanka booliiska si capacity building-giisa hore loogu mariyo dhismayaal cusub oo ay ka mid tahay xarunta ciidanka badda oo nala ku wareejiyay oo casriyaysan hadda daawanayseen tababarka ciidanka badda ee xalane oo lagu tababaro ciidanka badda lagu tababaro oo yarana dhawaanna ku wareejiyay saldhiga Waaberi oo cusub saldhiga Waaberi ee Dayniile saldhiga Waaberi ee Kaxda xarunta daraawiishta Sheelare oo hore u socoto la dhameystiray iyo xarunta Faraha intaas waa goobaha la dhameystiray oo hadda dhisan isbitaal Madiina qaybta OPD-da iyo laamiga la marinayo isagana gacanta lagu hayaa dugsiga dhexe ee barbaarinta xarada muxuu ahaa barbaarinta carruurta booliiskana dugsi dhexe laga dhisay